howlaha dib u dayactir lagu sameeyo garoonka diyaaradaha ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa halkaasi ka bilowday waxaana maamulka garoonka uu ka warbixiyay sida ay u socdaan howlahaasi. Ibrahim Maxamed Geedi ayaa warkaasi Beledweyne inoo soo diray. dhismaha garoonka ugaas Khaliif Airport ee magaalada Beledweyne ka socda waxa uu yahay mid aad u balaaran waxaana dhisaya UN-ka kadib markii in badan uu xirmay garoonka roobka daay gobolka Hiiraan. dhismaha ayaa hadda ah mid bilow ah waxaana ujeedadu tahay sidii garoonka u noqon lahaa mid uusan saameyn roobka xilliyada ay da'ayaan. maareeyaha garoonka ugaas Khaliif Airport ee magaalada Beledweyne Maxamed Ibrahim ayaa waxa uu sheegay in dhismaha garoonka uu yahay mid la doonayo in garoonka hawshiisu ay socoto maadaama ay diyaarado badan ka degaan maalin kasta. isticmaalkiisu u sii socdo dib u habeyn ku socota balse waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala waqti aan fogeyn inuu garoonkan heli doono dhismo dhammaystiran saasaan rajaynaynaa rajooyin baa jira inkastoo runtii dadka reer Hiiraan mar walba ay noqdeen kuwa ayagu ka dambeeya gobollada kale iyo muxuu ahay dalka intiisa kale ee reerborada ku yaal waxay heleen gurmad ama dhismo dadka gobolka u dhashay ay sameeyeen dadka reer Hiiraan waxaad moodaa in ay ka maqan tahay isku tashigu inuu ka maqan yahay. Maxamed Ibrahim maareeyaha garoonka ugaas Khaliif ayaa sidoo kale u baaqay madaxda maamulka Hirshabeelle inay sii kordhiyaan dadaalkooda ku aadan horumarinta garoonada iyo garoomada kale ee Hirshabeelle. wallahi maamulka Hirshabeelle cusub runtii kuma war la'a garoonka ugaas Khaliif International Airport kuma ay war la'a waxaan ogahay in ay dadaal hadda carabkan ku dhuftay waxaan leeyahay marka ha ka dheereeyeen laakiin waan ogahay in dadaalkaas ay ku jiraan sidaan wada ognahayna waa curdun intii jiraan baan ognahay intii jiraan ku dhoodaysan ku war lahayn waxaan la ogahay madaxweynuhu markii uu tegey dalka Imaaraadka baahiyadii ugu horeeyay uu ka mid yahay garoonku. Ibrahim Maxamed Geedi warbaahinta qaranka Beledweyne.